taariikhdu waxay abaaraysay 3 bishii tobnaad sanadku waa 1993 guuto ciidan ah oo ka kooban 19 diyaaradood 12 taangi iyo 160 askari oo ka mid ah waaxda howlgallada gaarka ah ee ciidanka Mareykanka ee loo yaqaano Delta Force ayaa u soo dhaqaaqay dhanka bartamaha Muqdisho. We must pursue new diplomatic efforts to help the Somalis find a political solution to their problems. علي مهدي لو صار مدح نقدر هذا عايزين مدح نقدر هذا تذكرين مدح نقدر من ربي سافي عقول اسمه واي وبعدها يعني اعتبرته الأمم المتحدة بأنه مجرم حرب. yoolku wuxuu ahaa soo qabashada mid ka mid ah hogaamiyayaashii ka dagaalamayay magaalada Muqdisho. Here you can see the very beginning of the mission. wuxuu ahaa howlgal lagu mudeeyay inuu socdo 1 saac oo kaliya ka hor inta aanu isku bedelin mid qaata maalmo laguna laayay tobaneeyo commandoska Mareykanka ka tirsan. horaantii sanadkii 1991 xogagii mucaaradka ee diidanaa xukunka madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweyne Siyaad Barre ayaa awood u yeeshay inay xukunka ka faramuroojiyaan waxa waddanka ka tagay madaxweynihii dalka waxa burburay ciidankii waxayna isku bedeleen xogag kala taabacsan jabhadihii ka soo horjeeday xukunkii Siyaad Barre waxay hal mar Soomaalidu ku baraarugeen iyaga oo ku dhex nool dal aan ciidan qaran iyo hoggaan lahayn. waxaa samaysmay jabhado dhowr ah oo badankood hayb qabiil xambaarsan sida jabhadihii SPM, SDM, SSDF iyo SNM. qorshuhu wuxuu ahaa in xilka laga tuuro Siyaad Barre laakiin ma jirin qorshe iyo yool cad oo ay ka mideysnaayeen jabhadahani taasi oo qeexaysa qaabka dalka loo maamulayo Siyaad Barre gadaashii. mid kale waxaa jirta in qof waliba inuu isagu rabo inuu madaxda noqdo. علي مهدي لو صار مدح نقدر هذا عايزين مدح نقدر هذا تذكرين مدح نقدر من ربي سافي عقول اسمه واي لكن عندي حاجة لقايكو مشكلة ده وجوه إنه حاجة هراي هاي تاهري مركز حماتي بحثي كوادا منه وحاجات واي markii ay gaareen yoolkoodii ahaa in xukunkii kaligii talisnimo la rido waxay noqdeen jabhadihii shalay isgarabsanayay kuwa iyagu ku loolama hoggaanka dalka. jabhad walbana waxay u tafahaydatay sidii ay iyadu ku hanan lahayd talada dalka. arintani ayaa keentay in dagaallo xooggan oo aan waxba la isugu reeban ay ka qarxaan caasimadda dalka iyo gobolladii kale qaybtood. dagaaladan ayaa sababay inay gubtaan beerihii shaqadiina joojiyaan warshadihii wax soo saarku. hakadkan ku yimi wax soo saarkii dalka ayaa keenay inay gaajo dilaacdo. أنا كنت من الذين نزحوا لمدينة ماركو وشاهدت أفواج من البشر على شكل هياكل بشرية يعني ليست يعني بسبب الجوع ليس هناك لحم على البشرة وكان الناس يموتون بالعشرات وتلك المجاعة هي التي أدت إلى تدخل القوات الأمريكية ومعها القوات الدولية. gaajadan iyo macluushan ayaa galaafatay nolosha 100,000 oo caruur iyo maato isugu jirtay. gargaaradii dalalka shisheeye ka imaanayayna waxay noqdeen badankood kuwa gacanta u gala hogaamiyayaasha jabhadihii dagaalamayay kuwaasi oo u adeegsaday gargaaradan inay ka macaashaan ama gorgortan kula galaan dalalka aynu daris wadaagga nahay inay raashinkan iyo deeqahan hub uga beddeshaan. tallaabadan arxanka daran ayaa keentay in intii u dhaxaysay 1991 ilaa 1992 oo kaliya ay gaajo ugu dhintaan gudaha dalka ku dhowaad 300,000 oo qof. tallaabadan ayaana horseeday in indhaha caalamku ku soo eegayeen Soomaaliya kuna kaalmeynayeen uu isbedel ku yimaado. warbaahinta dadkii oo gaajoonay oo dhibray oo lafa ah marka waa loo soo gurwaday xataa waa yimid bush marka aakhirkii waxay noqotay United Nations inay soo farageliyaan
oo la yidhahdo Soomaaliya amniga caalamka ayay khatar ku tahay. loolanka ugu weyn wuxuu u dhaxeeyay madaxweyne Cali Mahdi iyo Generaal Maxamed Faarax Caydiid bishii toddobaad sanadkii 1991 shirweynihii dib u heshiisiinta ee ka dhacay Djibouti ayaa lagu doortay Cali Mahdi inuu noqdo madaxweyne ku meel gaar ah muddo 2 sano ah, laakiin Caydiid oo isku arkayay xilligaasi inuu door weyn ku lahaa burburinta xukunkii madaxweyne Siyaad Barre isaguna uu xaq u leeyahay inuu dalka hogaamiyo ayaa ka biyadiiday heshiiskan lagu gaaray Djibouti. diidmadan uu ku diiday Caydiid madaxtinimada Cali Mahdi ayaa ka dhigtay labada hogaamiye kuwa uu dib uga dhaxurto dagaal hor leh ka hor inta aan xabad joojin la dhex dhigin. bishii toddobaad sanadkii 1992 waxayna qaramada midoobay u soo dirtay Soomaaliya 50 askari oo ay hawshoodu tahay inay korjoogteeyaan dhaqangelinta xabad joojintan. bishii 8aad ee isla sanadkaasi 1992 Mareykanka ayaa bilaabay inuu damac ka galo Soomaaliya, wuxuuna xilligaasi bilaabay faragelin qaawan oo uu ku soo faragashanayo Soomaaliya kadib markii uu soo daabulay 400 oo askari iyo 10 diyaaradood oo ah nooca loo yaqaano C-130. diyaaradahan oo uu Mareykanku sheegay inay wadeen gargaar raashin iyo agab caafimaad isugu jiray ayaa lagu wareejiyay Soomaalida, laakiin gargaaradan iyo mucaawinooyinkan ma noqon kuwo joojiya dabkii ka holcayay Soomaaliya, arrintan oo uu Mareykanku fursad dahabi ah ka dhex arkay. bishii 9aad sanadkii 1992 ayuu Mareykanku daaha ka rogay howlgal uu ugu magacdaray soo celintii rajada. howlgalkan oo ahaa howlgal military ayaa ciidamo ka socda qaramada midoobay hogaankana uu hayo Mareykanku lagu soo daabulay Muqdisho. markii ay soo gaareen ciidamadani magaalada Muqdisho isla markiiba waxay bilaabeen howlgallo ballaaran, waxayna ciidamo ka tirsan ciidamada Mariniska ee Mareykanku ay awood u yeesheen inay gacanta ku dhigaan ku dhawaad 3 meelood oo meel magaalada Muqdisho. goobaha ay gacanta ku dhigeenna waxa ku jiray aeroboortka iyo dekedda magaalada, wuxuuna sidaasi dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka socday isugu bedelay waji cusub. bishii 6aad sanadkii 1993 ciidamo ka tirsan jabhaddii uu hogaaminayay Faarax Caydiid ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan ciidamadii qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u joogay Soomaaliya. dhacdadan ayaa ka dhigtay ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliya mid amra in la soo qabto Generaal Maxamed Faarax Caydiid. 3 Oktoobar sanadkii 1993 abaare 4 galabnimo ayay guuto ka tirsan ciidamada Mareykanka ee sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano Rangers iyo Delta Force u jihaysteen dhanka Hotel Olympic oo la tuhunsanaa in Caydiid uu kula shireeyay qayb ka mid ah odayaasha beeshiisa. ciidamadan oo ka koobnaa 160 askari, 19 diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano Black Hawk iyo 12 taanki. Todd Blackburn, when he left the Black Hawk to slide down the rope, he missed the rope and he fell somewhere between 70 and... weerarkan ayay ku muddeeyeen ciidamadii Mareykanku inay ku soo afjarayaan 1 saaco keliya. ninka ay u socdaan ma ahan nin ay sahlan tahay in si fudud lagu qabto. goobta ay damacsanaayeen inay ka soo qabtaanna waa goob dhexda ugu jirta taageerayaashiisii iyo ciidankii isaga taabacsanaa, laakiin Mareykanka oo ay indho tirtay awoodda iyo xeeladda ciidamadiisa aadka u carbisnaa ayaa ku warhelay waaqac filan waa ku noqday. markii ay yimaadeen ciidamadii Mareykanku goobtii ay howlgalka ka fulin lahaayeen bilaabeenna inay ka soo daataan diyaaradihii ay la socdeen, ayaa waxaa goobta ka qarxay dagaal dhex maray ciidamadii degayay iyo ilaalo meesha ka dhoweyd. dagaalka ayaa sii xoogaystay markii ay soo galeen ciidamo ka tirsan UNISOM oo isku dhafan, baabuurta gaashaamanna ku dagaalamayay iyo dadweyne diidanaa doonista Mareykanka iyo damacii uu qarsan waayay. qacdii hore ee dagaalkaba waxaa la soo riday 2 diyaaradood oo uu lahaa Mareykanku, ahaana nooca loo yaqaano Black Hawk, waxayna soo rideen shacabkii hubaysnaa. diyaaradahan iyaga oo adeegsanaya qoriga loo yaqaano RPG. dagaalkii ayaa qaraaraaday,
wuxuu socday ilaa subaxnimadii dambe waxaana ka dhashay khasaare dhanka Soomaalida u badnaa. Qiyaaso kala duwan ayaa la sheegaa marka laga hadlayo qiimeynta dhibka Soomaalida soo gaaray. Dhanka ciidamada huwanta, geeridu waxay gaaraysay ilaa 100 askari oo inta uu qirtay ay 18 ka mid ah ay Mareykan ahaayeen, halka nolol lagu qabtay duuliyihii duulinayay diyaarad ka mid ah 2 diyaaradood ee lagu soo riday dagaalka. Duuliyahan oo la oran jiray Mikhail ayaa la sii dayn doonaa 10 maalmood dagaalka kadib, waxayna sidoo kale afduubteen tobaneeyo u badnaa ciidamadii Pakistan iyo Bangladesh. Dhanka Soomaalida, Mareykanku waxay qafaasheen ilaa 9 qof oo ay ku qabteen gurigii dagaalku ka bilowday, waxaana ka mid ahaa la taliyihii Caydiid ee arrimaha dibadda. dagaalka hillaaca baxayay ama roob waa taqaana marka roob da'ay hillaaca sidoo baxo hillaacaas xabad la mid ah ayaa habeenka xabadda magaalada ka socotay qof u soo dhaqaaqi karay ma jirin xabadduna waxay ahayd. Habeenkaas dagaalku uu socday waxay ahayd magaaladu mid aan laga seexan oo ciidamadii duulaanka soo qaaday ay go'doon in ay geliyaan ka sokow, qaarkood iyagoo baxsad ah u carareen xarumahoodii. taasi oo howlgalkii lagu doonayay in Generaal Caydiid lagu soo qabto ka dhigtay inuu isku bedelay badbaadinta ciidamadii Mareykanka ee ku dhintay, ku go'doomay ama nolosha lagu qabtay. nin duulaana oo hogaaminaya 37 dawladood oo dal islaam iyo gaalaba leh baan ugu soo duulay. ilaahayna waan ugu guuleeyay, waa iska celin annagana waa ku baabaanay. waxa la yaab kale waxay tahay in ciidan sidaasi oo dhan u tiro badan, u tayo sareeya, haddana u tababar fiican, in dagaalka ay la galeen Soomaali aan hubkooda mid u dhow haysan ay haddana jabka noocaas ah u geysteen. dadkii diyaaradii soo dhacday oo ku soo dhacday xafadan Howlwadaag, dadkii watay waxay isku aadiyeen markii ka dageen arday dugsi joogtay isku aadiyeen. dugsigii markay isku aadiyeen xabad dadkii meesha jooga dagaalamayay ayaa dabcan laayaan ardadii 30 arday ilaa 40 arday bay isku aadiyeenoo gabaadka dhufays ka dhigteen. marka xabadda lagu riday arday bay qabanayeen oo xabadda isaga dhigayeen. ardaygii baa dhahay war xabadda naga daaya. dagaalkaasi waxaa laga sameeyey filim la yiraahdo Black Hawk Down. inkasta oo uu filimkani buunbuuninayo ciidamadii Mareykanka una sawirayo inay u joogeen Soomaaliya bini'aadantinimo, haddana wuxuu ka mid yahay tobaneeyo filimaan, buugaag iyo dokumentariyo laga curiyay dagaalkan, wuxuuna Mareykanka u noqday 10 dagaal iyo siyaasadeed. Soomaalida maalintaasi iyo habeenkeedii waxay u ahayd waqti uu dhiig badani daatay, dad badan ay naftoodii waayeen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Saameyntiisii siyaasadeedna raadkeedii uu weli sii yaalo. 40 dawladood oo Mareykan ugu horeeyo waliba markaasi ku soo guuleystay dagaalkii qaboobaa oo qayb ka mid ah burburkii dawladdeenu ka mid ahaa. dadweyne iyo bulsho dhagax iyo waraf ku dagaalamaysay u adeegsadeen hub culus iyo duqeyn diyaaradeed. waxay ahayd dhaqan si walba uga fog aadantinimada iyo insaaniyadda oo kaliya la eegay adeegsiga itaal iyo awood, balse iyaguna ma gaarin yoolkoodii oo waxa loo geystay khasaare kii ugu xumaa abid oo dhakafaar iyo dhabanahays ku noqday. hal mar waxa warbaahinta adduunka qabsatay sawirada askari Mareykan ah oo ay dad careysan ku jiidayeen wadooyinka iyo fagaarayaasha magaalada Muqdisho. inkasta oo uu ahaa fal guracan oo bini'aadantinimada iyo islaamnimada ka hor imaanaya, haddana waxay filan waa iyo la yaab ku noqotay dalalkii adduunka oo idil, wuxuuna dhaawac ku yimid haybaddii ciidan ee Mareykanka. jabkii iyo jacdii soo gaartay kadib 7 bishii 10 1993 madaxweynihii Mareykanka Bill Clinton wuxuu sheegay inay isbedeshay guud ahaan siyaasaddii Mareykanka ee ku aadaneyd Soomaaliya. dhammaan ciidamada Mareykankana laga saarayo Soomaaliya bisha 3 1995 marka hadallada catowga ama calaacalka ah meel la iska dhigo. awooddii xaddaafka ahayd ee ciidamadii Mareykanku adeegsanayeen iyo hubkii sunta khatarta ah lahaa ee dadkeenna iyo dalkeenna loo adeegsaday, ma jirto cid iska wareysatay ama xisaabteeda u istaagtay. maxaa yeelay Mareykanka iyo qaramada midoobay labaduba waxay ahaayeen qiraal khasaaraha faraha badan ee ka dhashay dagaalkaasi ee naf iyo maalba leh. الصومال لا يراد لها أن تكون دولة، يراد لها أن تكون فناء يقتتل فيه الجميع وتراق الدماء. فأقسمت أمريكا أن لن تقوم لهذه الدولة قائمة بعد الآن.
waa hubaal in dagaalkaasi uu ahaa khasaare xooggan oo la gaarsiiyey dawlad isla weyneed oo isku aragtay hoggaanka dunida, haddana ay gaarsiiyeen beelo iyo isbahaysi aan baaruud ku filan iyo hub aad u waaweyn wadan. waxaa jiray dawlado kale oo sodoomeeyo ka badnaa oo qaarkood safka hore dagaalka ka galay, seefta iyo sawaariikhduna leefeen oo xeryahooda loogu dhacay.